jacaylka aamusani wuxuu ka mid yahay dareemayaasha kuwa ugu qaalisan uguna saamaynta badan nafta. weligaa miyaad maqashay jacaylka aamusan? laga yaabo qof inuu ku jecel yahay, uusa kuu sheegin, ku dareensiin, oo iska aamusan yahay, danihiisa uu iska wato. jacaylka aamusani dareemayaasha kuwa ugu qiimaha badan weeye. jacaylka noocaanna waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay dareemayaasha kuwa ugu runta badan uguna daacadda weyn. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in uu ku dhaco jacaylka aamusan ee aan hadlayn. qofka inuu saameeyo oo ku dhaco ayaa macquula. laga yaabo qofka kale inuusan dareensanayn arrintaas, inuu sidaasoo kale u muujiyo iyo in kale asagoon dareensanayn. waxaa la yidhahdaa jacaylka aamusan dareemayaashiisu waxay ka imaadaan ilaalo aad iyo aad u fog oo qofka uu jecel yahay aad uga fog, isagoo kor kala soconayo ka ilaalinaya. wa maca daalika waa aamusan yahay, hase yeeshee ruuxaas ayuu jecel yahay. wuu aamusan yahay oo ma muujinayo asagoo ka cabsanaya inuu jacaylka ku jira uu waayo, ama uu kala kulmo qofkaas hadduu u sheegto wax uusan jeclayn oo baabi'in kara jacaylkiisaas aamusan. marka see ku ogaan kartaa qofka adig ku jecel laakiin aamusan? maxaad ku dareemi kartaa? waxaan soo bandhigaynaa dhowr qodob oo uu tilmaamay cilmu nafsiga si aad u ogaatid jacaylka aamusan ee lagu hayo. qofka uu ku jiro jacaylka aamusan wuxuu isku dayayaa in badan inuu ka fogeeyo inay dareemaan dadka asaga ka agdhow, saaxiibadiis, qoyskiisa, iyo kuwa ku shaqada ah iyo kuwa iska agdhow yihiin. wuxuu iska ilaalinayaan inay fahmaan jacaylka gudihiisa ku jira. marka jacaylka wax kasta oo soo muujinaya ayuu iska ilaalinaya, isagoo dadka ag jooga inay dareemaan diidaya. marka waa aamusan yahay, dantiisa khaaska ayuu wataa. qofka noocaasa waa qof uu hayo jacaylka aamusan. qof buu jecel yahay, laakiin inuu muujiyo cabsi buu ka qabaa, isagoo ka cabsi qaba qofkiisaas inuu waayo ama uu kala kulmo wax uusa filay. laakiin laga yaabaa ninka noocaas ama jacaylka noocaas uu hayo, gabadha uu jecel yahay, laga yaabaa inay iyadu dareento si toosa, laakiin ma ahee qaabab kale inay ku fahantaa ayaa macquula. laakiin asagu wuxuu ka ilaalinayaa dadka ka agdhow inay fahmaan, ayuu ka dhowraya. ninka uu hayo jacaylka aamusan wuxuu aad ugu dadaalaa gabadha uu jecel yahay. in badanna wuxuu isku dayaa inuu ogaado arrimaha ay jeceshahay gabadhaas. arrimaha agteeda qaaliga ka ah ayuu jecel yahay ninka jacaylka aamusan uu hayo inuu ogaado, laakiin si toos ayada u weydiin mayo. ilaalo guud oo kor kala soconayo ayuu doonaya inuu ku ogaado arrimaha ay jeceshahay ama ay aad u xiisayso ama aad ka agteeda looga qiimeeyo. wuxuu ku ogaanayaa ama uu ka ilaalinayaa kor, ama inuu ka soo agdhowaado meelaha gabadha uu jecel yahay ee inta badan u badan tahay, ama suurtagalka ay tahay inay joogto. meelaha noocaas ayuu ka soo agdhowaanayaa, kor ayuu kala soconayaa si uu u ogaado dhaqdhaqaaqa gabadhan iyo waxyaalahay jeceshahay iyo waxa farxadda u noqon kara. hasha yeeshee si toosa iyada uma weydiinayo. waxaa laga yaabaa oo dhici karta ninkan jacaylka aamusan u hayo inay ka imaadaan dhaqan dadka ka agdhow ay la yaabaan oo ay la fajacaan, oo mararka qaarkood gurigooda isagoo jooga ama dadka asxaabtiisa la jooga carabka inuu ku taataabto ayaa laga yaabaa gabadha uu jecel yahay, ama magaceeda ama dadka ka agdhow ama muuqeeda inuu carabka uu ka xado ama uu ku soo qaado ayaa mararka qaarkood macquul noqon karta, ayagoo markaasi la yaabayaan dadka ka agdhow oo qofkan uu tilmaamaya aysa fahmayn. sida tusaaloo kale qoyskiisa oo kale, oo markuu soo qaado magaceeda ama wax ayada xiriirla leh in wejiga u guduuto ama wejigiisa isbeddelo ayaa macquula. haddaad sii weydiisad arrinkaasna uusa kuu sii dhexgelayn, waxaa laga yaabaa inaada helinba sheeko intaa ka dheer ama faahfaahin intaa ka sii xeel dheer. isla waqtigaasna waxaa laga yaabaa inuu muusoodo oo ilka caddeeyo ama uu dhoollo caddeeyo oo iska muujiyo farxad. waa dhaqamada lagu garto ama calaamada lagu garto qofkan inuu hayo jacayl aamusan ousa muujin weli, qofkii uu jeclaana uusa u sheegin. calaamadaha waxaa ka mid noqon kara oo lagu dareemi kara ninkan in jacayl aamusan uu hayo, in gabadha uu jecel yahay oo jacaylka uu qabo inuu si guud aragtida ugu hayo. haddii agteeda uu soo maro ama iyadoo ay soo marto
ama meel ay joogto uu soo maro inuu ishi sidaa ugu hayo soo wax kaloo jawaabaya hadalkan aan bixinay walow meel ka fog baha maraya markaas aragtida uu ku soo tilmaamaya ama isha sidaas ugu soo fiirinayo taa waxay tilmaamaysaa ninkan inuu dilooday jacayl aad iyo aad u xaddaafay oo qaybta loo yaqaana jacaylka aamusan qofkuu jecel yahay kor buu laakiin kala socdaa haweenayda guud ahaan dhaqdhaqaaqeeda iyo socodkeeda iyo shaqadeedu iyo ficilada ka imaanaya way ka qajilaad badan yihiin kuwa ragga si guud horta sidaas inaynu u fahanno waa muhiim laga yaaba haweenayda laftarkeedu haddii jacaylka noocaasa ayada uu ku dhaco nafteeda ooma saamaxayso inay jacaylkaasi muujiso jacaylka gudaheeda ku jira inay u muujiso ninka ay jeceshahay haweenka inta badan way ka leexleexdaan laakiin tasarufaad iyo dhaqan tilmaamaya inay ku jeceshahay ayay muujisaa oo ka imaada ama kaaga imaada taasna macnaheedu ma ahan inay oola jeeddo inay muujinayso jacaylkeeda ama calaamadihiisa ama tusaalayaasha lagu garto inay soo bandhigayso macnaheedu sidaa ma ahan laakiin ayadoon is ogeyn ama adigu aada dareemi karinba mararka qaarkood in ay arrimaha ka imaadaan ayaa macquul ah haweenayda marka iyadoo laftarkeeda haddii jacaylka uu ku dhaco waxay u istaagaysaa ama ay samaynaysaa ilaalo guud oo ninka ay jeceshahay ama jacaylkaasi u qabto ay ka kor hayso oo ay korkiisa maaragtay si guud ay u ilaaliso laakiin haweenayda kan ragga markaa wuxuu uga duwanaanayaa iyadoo keeda waa mid xadidan leanna haweenaydu ma awoodo ama ooma suubana inay wareegto meelaha raggu ay ku badan yihiin ama ninka ay jeceshahay meelaha uu ku badan yahay laakiin ninku wuu awoodaa inuu soo kormeero haweenayda uu jecel yahay meelaha ay joogto iyo meelaha laga helo idan keedu marka waa xadidan yahay marka haweenaydaas markaasi haweenayda keeda ama ilaaladeeda ay ninka ay jeceshahay kor ka ilaalinayso waa xadidan yahay dhaqdhaqaaq badan ma lahan li'anna abuuristeedaan taas siinayn iyo haweennimadeeda laakiin in badan waxay isku daydaa inay fursad ku guulaysato fursaddaasoo u saamaxaysa in ay kor ka ilaaliso ninka ay u qabto jacaylka weliba jacaylka aamusan fursadahay markaasi gaadhaa ee soo mara dhinaca kale waxay isku daydaa oo muhiimad siisaa inay muujiso waxyaalo soo jiidan kara asaga oo fahansiin kara inay jeceshahay marka ay fursadahaas hesho inay arrimahaasi soo bandhigto ayaa laga yaabaa laakiin waa naadir haweenaydu markay nin jeceshahay jacaylkeedunuu yahay jacaylka aamusan markay jacaylka la istaagto ama dana kale ay isu keenaan masaafo xoogaa yar u jirta ayay isku daydaa inay istaagto waa calaamad muujinaysa gabadhan inay ku jeceshahay jacaylkeedunuu yahay mid gudaha weli ku jira masaafada qofka uu kuu jirsanayo waa arrimaha ugu waaweyn ee wax soo jiita dhinaca haweenka markii loo fiiriyo gabadhu markay ninkan markay jeceshahay markay la istaagayso way u soo dhowaanaysaa meel u dhow ayay istaagaysaa leanna waxay aaminsan tahay arrimahaasi inay ka mid yihiin waxyaalaha u soo jiidi kara qofka ay jeceshahay sababtoo ah si nafsi ah ayay waxay u dareemaysaa intaa markay u jirto ammaan ama deganaanshahaasoo ooga qiimo badan ama ooga weyn taagnida ay qof kale la taagan tahay marka jacaylka aamusani wuxuu ka mid yahay sidaan horay u tilmaannayba dareemayaasha qofka gudihiisa ku jira laakiin ka mida dareemayaasha kuwa ugu qaalisan haweenaydana waa ku dhici karaa ninkana waa ku dhici karaa oo ninku jacaylka noocaasa gabar buu qaadi karaa gabadhuna sidoo kale laakiin dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha aynu tilmaannay ee kooban waxay tilmaami karaan ama calaamad u noqon karaan in qofkaani uu ku jecel yahay jacayl hoose weliba oo la doonaya inta kalena adigu inaad dhammaystirto kor u soo saartid